heestan ayaa waxay noqon doontaa hees kaga xanuun badan CK sida la sheegay heestii oo WCB ku soo karbaashay dad badan ayaa sidaas sheegaya dhalinyaradii barnaamijkan ila soo wadaagta xogtan ayaa waxay sheegeen oo ogaa heestan diyaariskeeda iyo muuqaalkeeda iyo habeenteeda waxay ku leeyihiin WCB heestii oo ku soo كاتو دمان أصحابك كحر الجنة كي أيام قلبي أوفيشيال كسر وهذا ما أنت مقال عصب هذا جنك كعصب تهاي سبسكرايب نصار سينا شير جراي لايك جراي كومنت جراي وأكون محسن تهاي هذا رنولو جوكتنا ثانك يو باي ذا هاي وحارنا أنا ما أنت كهذا الله وحصوص عطو هيس دجاه فرح لك شدونه هيس وحصوص عطو مع المها كان عنه رأوارك ليلة بليل warar xog la hubo oo lagu kalsoonaa karo oo aan ka helay dhanka iyo magaalada Berlin ayaa waxay sheegaysaa ama waxa uu sheegayaa Lila Blil inuu soo wado hees faraha looga gubtay heestan ayaa waxay noqon doontaa hees holac ah heestan waxa ku jirto ugu yaraan 3 kasmaayo oo saas alaabta alaabta fardaha wadatay 3 naag baa ku jirto oo cadaan oo aan caadi ahayn heestan ayaa waxay tahay hees lagu garaaci doono kinka CK laguna karbaashi doono ilama ahan xogta tan in CK oo san heen walow laga yaabo dadkiinaan ma taqaanaa inay heen laakiin xogta tan waa xog lagu kalsoonaa karo wiiga kan bayna soo bixi doontaa heestan ayaa waxa ah hees afuufkeeda wadata heestan ayaa waxa lagu karbaashi doonaa CK laguna garaaci doonaa heestan ayaa waxay noqon doontaa heesta wiiga aniga kama hadlaayo erayada iyo waxa aniga ma arkino erayada kama hadlaayo waxaan ka hadlayaa muusigeeda sida loo diyaarshay baanu arkay oo aan maqlay iyo muuqaalkeeda hordhiciisana waa arkay heestan ayaa waxay noqon doontaa hees kaga xanuun badan CK sida la sheegay heestii oo WCB ku soo karbaashay dad badan ayaa sidaas sheegaya dhalinyaradii barnaamijkan ila soo wadaagta xogtan ayaa waxay sheegeen oo ogaa heestan diyaariskeeda iyo muuqaalkeeda iyo habeenteeda waxay ku leeyihiin WCB heestii oo ku soo karbaashay tan baa kaga xanuun badnaa doonta CK marka kan waxa weeye kabtiisa waxa uu galay biyo CK waxa ka baqaa maalmaha soo socda maayanta tan in uu caagidiisa ka biyeysto YouTube hadii xaaladdu san ku socoto warniyo odaga baasha u jalciya oo u dabciya odayaan ma arkino aad loogu tarax tagin oo odayaal badan oo waxa arkayay ku tarax tagay oo odaga ma arkino odayaal kale isqabsadeen si dadban kaga heeliyay ama si dadban u soo karbaashay oo reey magaalnimo ah CK anigu talan ku siinaa walaalkay talooyinka aniga aan ku siinayo hadaa qaadato wallahi dadka waa ka adkaanay talada aan ku siinayo waxa way kow haddii qof oo ku soo karbaasho ama wax ka soo sheego macnaha waxa u qaadataa inuu ku soo amaan ahaan positive u qaado wax yar oo ma taqaana dareenayso ku galin waa talada koowaad hadaa qaadanayso ina qaadanayso samooga aniga labo iska dhaaf marka aad magaalooyinka kale iyo meelaha kale aad tagto dadka kale uga sheekayso oo hadii qof kale wax laga weydiyo ama oo laga wareysto waxa tira legend waa aamisanahay daaseed sii soco laabta ku hayso waxaaga waxyaabaha lagu haysto anigu waa ogahay moogta dadku kugu haystaan waa iska ogahay iska dhalinyarnimo ka tahay xumaata kaama ahan laakiin dhalinyarnimo ka tahay hebel anaa soo saaray hebel anaa ka khatarsan hebel anaa ka labis shidan hebel anaa ka muusig shidan waxyaabaha aad ku sheekayso ma ogtahay in dadka kaga sheekaysan in u sii gudbinayaan labada qodob horta iska ilow ina sameeyso qodobka kale oo saddexaad oo aan ku siinayaa waxay tahay social media waxa weeye waxa lagu joogaa waxa la dhaho xulufaysi ma maqashay xulufada Mareykanka iyo xulufada waxa ma maqashay adduunka kan waa xulufaysi Snapchat ku xuleeyaa xulufaysi gruubo waxa jira qafka ay galaan dhagaha farta u dara Instagram-ka aragta waa xulufaysi waa aragtay oo leefkiisa waa aragtay 5 istaqaana soo qabato waxa isku jijiida TikTok waa xulufaysi Facebook waa aragtay
tiimka habiiqlayso iyo tiimamkan daahir caliso iyo waa aragta youtube-na waa sidoo kale adiga marka meesha ay kaaga halaadaan waxay tahay isxulafaysigaas ma taqaanid ee waxaad aaminsan tahaba haddii aad xulafo samaysatid oo tiim mataqaanaa haddii aad maanta tiim ahaa lahayd aniga 100% waxaan aaminsanaa maanta haddii aad lahaa lahayd 5 qof oo dadka kugu dhow oo asxaab ah haddaa haysa lahayd maanta dadkaan oo dhan kuma soo hunguriyeen wallahi laakiin kaliya inaad tahay la arkay qof kasta sidaas indhaha kugu soo shitaa social media waa xulafaysi saddexda qodob CK haddaa qaadato wallahi oo bilaahi oo talaahi isan cidna kugu soo xadgudbi karin cidna kugu imaan karin laakiin qaadamaysid waa ku ogahay walba almiina waxa iska gashaa mood iska gal ay saneeyna saddexdan qodob oo aan kuu soo sheegay qaado si dadka ay kaga adkaato xulafaysi inaad leedahay group xulafaysiya inaad markaad magaalooyinka kale ama dad kale u tagto aadan dadka kale la gelin oo uga sheekeen oo ka dhacdo dadka soo wada shaqayseen iyo in haddii laga soo hadlo wax walba oo laga soo sheego ay caadi kula noqdaan aysan wax damage iyo wax xanuun aad ku dareemin qodobada haddaa qaadato wallahi waa ka adkaanay qafna kugu soo degdegayo saddexda qodob waa ka maqayin waa saddex qodob oo muhiim ah oo mataqaana lagaaga adkaaday waxaan ku sheegayaa hees baa hadda soo socoto baa la leeyahay Lila Baliil dabku ka soo qaadi rabaa weekend heestan ayaa waxa lagu garaaci doonaa CK heestatan waxa lagu leeyahay waxa waaye fanka yaa ku soo daray Lila Baliil heesti ugu horeeyay yaa u qoray Lila Baliil Nairobi markaa imaanaysay maxaa soo doontay ina ku soo shido u timid waa ku wax noocaas waaye erayada waa ay ku jiri doontaa CK waxaan ku leeyahay adeer bishatan bishaadi maahan waa ogahay bil xanuun badan bay ku tahay laakiin isku day in aad mataqaanaa is adkaysid oo aad mataqaanaa ii sheeg maxaa lahaa dagaalkan aad iska qaboojiso sababtoo ah dagaalkan waa dagaal dhowr geesood kaaga socdo dagaal aad guulo ama ka keeni karta maahan waa dagaalkan waa lagu tashtay dadka kan waxay kugu tashteen baraada waxaa la yiri meel kasta laga soo weeraro marka u dambeeda maanada asala taabsiina waxa dhan oo lagu raadina waa inta adeero gacaliya maanooyinka haddii aad rabtid inaad taabatidna dagaalkan adoo kaliya ah iyo dadka wajah haddii aad rabtid inaad maana taabana dagaalkan ka farxalo bisweeye dagaalkan ka farxalo mood iska gal haddii laakiin aad san ku sii socotid dhiiqooyin iimaanooyin badan lagu taabsiinaya waanu arki doonaa heesta Lila Baliil marka ay soo baxdo hadduu Ilaahay yiraahdo oo lagu garaaci doono CK iyo groupkiisaba CK family dadka oo ula baxay CK family u diyaar garooba heesta soo socota oo Lila Baliil wiiga kan soo qaadi doono heestaas ayaa hees aad u xanuun badan farahana looga guwad doono sida la saadaalinayo heestan ayaa dabka soo saaran warka kan waxaan ka helnay Berlin baanu ka helnay iyo area Dortmund waa Royal Family oo leh shuba digirta still we are student hadda janka ku xusubtaa subscribe saaro video kan si share garay like garay comment garay gambalelkana furo intaan muuqaalkan muuqaal xig kulmi doona waxaan kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh